ونولا ماضي وحوي وحكي كوبي هاي أفر بلوغ والله بدمر كيا مدي دمر كتاي صدقنا يا رجعي أفر بعد دمر رجع هلا وادمر وكسو مرينا كسو دو مدحوين الله سبحانه وتعالى يا محل ساك حبسي قبل كتقدر isagoo dhamaadin madaxweynuhu xaadhiga inooga jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala mahad waxaan xasuusanayaa subaxii guddi nabadgelyahan hindisahan waxa keentay guddiga nabadgelyada ee gobolka Togdheer maanta waxaan u meenayaa taliyaha qaybeedkii baa malaka jooga maanta taliyaha qaybeedka ka jooga raggii hindisay maanta iyo gudoomiye ku-xigeenka markan baahida aragnay madaxweynaha qarankan u tagnay waqtiga joogay Axmed Maxamed Siilaanyo in badan baan ku qaadan حبسيgaas inuu dhismo Ibraahimanay wixii u horeeyay madaxweynuhu igala hadlay inay ahayd inuu jeelkii barca dhameystiro waxa laala iyo wixii kharashkiisana degdeg aan u diyaarinayno madaxweynuhu guuri sidaa direed aan qolada shirkadda iyo qolada asluubtooyinka aan ku jeelkii gacanta la saaro madaxweynuhu waa kaaga mahadnaqaynaa dhisnay mashruucaad aad u balaaran runtii anigu jeel ku sheegay waxaan leeyahay waa jaamacaddii dhaqan celiska meeshan waxa weeyaan waa nidaam aan jeelashu u dhisnay bay u dhisan tahay waa nidaam casri ah xabsiyada weyn arki jirnayo waxaan ku dadka lagu ciqaabi jiray laakiin kan waa raaxo waxaan leenahay anagu waxa weeyaan waa meel jaamacad waxa loogu talagalay qaybo waxbarasho leeyahay madaxweynuhu in badan buu soo maray qaar aan arkino way jiraan wuxuu leeyahay meelihii waxbarashada oo ilaa heer jaamacadeed loogu talagalay wax lagu barto waxaan u mahadnaqnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqnaa mudane Muuse Biixi booqashadan oo gobolkan loogu yimid anigoo gudoomiyihii maxkamadaha gobolkani gudoomiyaha maxkamadda raafaanka oo hay'adahan amniguna anaga laftigeena hoos yimaadaan